wafdi hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere ay ku weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland odayaasha waxgaradka waayeelka haldoorka iyo dhalinyarada labada beerood ee Bahar Suuq iyo Khayr Abdi ayaa gaadhay magaalada Dibataag ee ka tirsan koonfurta gobolka Sool. Safarka ayaa daaraa xoojinta labada iyo isdhexgalka deegaanada lagu kala maqnaan loogu soo noqon lahaa. Goorreyntii waxaa halkaa ka hadlay waayeelka iyo waxgaradka labada beelood iyagoona iftiimiyay ujeedka safarkooda. waayo waa la yiri waxay xaaladdu ila muuqataa waxa la reer Maxamuud iyo Cumar Maxamuud baa islaayay maanta bay shir isugu yimaadeen nin shir dheer la yiraahdaa kacay wuxuu yiri war reer Maxamuud inuu ahaa war Cumar Maxamuudow hoogay baan oranay ba ay naga daba dhahabuur xaaladdeenu halkaas ay saaran tahay labada reer xaaladoodu waxaan u maleeyaa maanta de meeshii gaadhay say tahay waa loo yahay maanta hadii umma daba qabata ama la daba qabtay inay halkii ka sii qaadaan mooyaan inay meesha ku noqdaan looma baahan taana intaasan kaga tagay taa markaan deegaanka ka warbixiyo annagu deegaamada kale waxbaanu kaga bedelana walaalaha iyagii naga guuray walowba aanan wada joogin nacfigu waa naga dhaxeeya marxaatigeedana waa la helaya ilaa maanta iyo maalintii ay naga tageen nacfigu waa naga dhaxeeya biyihii baa la cabayaa magaalada waa la soo galaa waa laga danadaystaa sidaa ay dharkayn iyo dhumayeen anaga dharkayn iyo dhumayeen nagu dharsanay sidooda manihin waanu ka sokeeysanay waanu ka dhowna sababtoo ah hadaynu saakan imaadna ama baashaba waanu maleeyaa inuu arkay sida xooluhu uga cabayaan kaliishana wuu noo yimi waa la og yahay oo beesha halka taala biyaha waxa looga qaadaa Dibataag war beenta miyayta halkan looga qaadaa biyaha waa noogu yimaadaa rog suuqa iska dhaaf isagoo oo u leeyahay iyagoo dhalinyaradu iyadoo hubaysan bay suuqa noogu timaada gacmo furan baan ku soo dhaweynaa waxaan nala ka adeegto oo de waa idinka deegaanka waxa weeye waa deegaan nabadeed dadkiisuna waa dad nabadeed way idinka muuqataa oo looma kala harin hooyooyin dhalinyaro odayaal de waad aragtaan oo gabdhihii durbaankay tumayaan meelahaynu soo marnay walow inaan ku leexnaan de durbaan iyo mashxarad midna maynu maqlayn baanu malay laakiin tan waxa u dheeraada durbaanka iyo mashxarad waxaan kale oo inta uga gudbayaa walaalahayo haday maanta yimaadaan iyo haday bari yimaadaan iyo haday saadamba yimaadaan labadaba markasta gacmo furan baan ku soo dhaweynay gogoshaana u taala taana way inay ku qalbi samaadaan nin waliba hantidiisi iyo berkadiisi oo iyada nalaba oran soo dhaweeyaan idin soo dhaweeyaan warbiyihiina cabo oo nala shaahe maanta laba leeyahay soo dhawaada ku dhaa maxaanu ku sharaysanaynaa waxaanu ku sharaysanaa ma jirto saanu idiin soo dhaweyn jirnay iyo si ka badan iyo si ka macaan baanu idinku soo dhaweyn waxaanu maanta u soconaa hal qodob ninba mahma wuxuu ku darsaday waxa aan wado waxa diidan nin waalan iyo nin wadkii galay maanta waxaanu wadna waxa diidi kara nin waalan iyo nin wadkii galay nabadda in badan baanu wadnay intii aanu wadnay waa laga gudbay maanta waxaanu wadnaa nabad maaha nabad hal la qaata maaha nabadii maxaa laga yeelayaa maaha maanta waxaanu wadnaa nabadii horaa loo qaatay wixii laga yeeli lahaana horaa in badan loogu socday waxaanu maanta wadnaa qof waliba inuu gurigiisii baydkiisii iyo baradiisii ku soo noqdo marka ay dhacdo nabaddu ummaddu ay nabad qaadato heshiis isugu soo noqoto ninka gurigiisii ma guban barkadnimo kama guban waxay noqonaysaa mar hadduu nabadgelyo qaato oo meeshiisii yimaado baydkiisii yimaado inuu u dhisan yahay oo kale waayo waxaa gudmiisho ah oo colaad ah oo maqnaansho ah kala maqnaanta waxaanu markaa annagu maanta wadnaa qof walba haddii allaba kuure inuu ku soo noqdo baydkiisii iyo beradiisii waa meesha uu u dhashay iyo meesha uu degaanka ku lahaa taa intaasaan kaga gudbayaa walaalkay Axmed Cali waa run wuxuu yidhi nacfigu waa naga dhexeeyey waa run waa annagaa kuu qarin waa naga dhexeeyey waxna waa naga soo gaari jireen haddii allaba kuure laakiin maalin baa waxaa jirtay haddii allaba kuure maalintii wiyeerka maalintaasina waa jirtay Axmed Cali Aadanow oo iyadoo biyihii la waayey oo carruurtii shubmayso yaa Dibataag waxay ay geliyey saddex salaan afar salaan iyo barkad buuxsantay waxaad tiraa waxaad u soo dirtaan gawaadhi dhulbahante gawaaridii dhulbahante markaanu u soo diray dhulbahantoo dhanna biyadhaan buu ku jiray isaaq baa biyadhaan ku jiray majeerteen baa biyadhaan ku jiray waxaa biyadhaan ku jiray haddii allaba kuureeyahay samaroon baa biyadhaan ku jirtay ogaadeen baa biyadhaan ku jirtay dadka biyadhaan baa lagaga jiray warsangeli baa ku jiray ummadoo dhan baa biyadhaan ku jirtay haddii allaba kuureeyahay marka waxay noqotay ninkii gawaadhidiisii inuu biyadhaankii u kaxaysto
kuwiinuna nooga soo gelayn kuwayagina waxaa tinaana imaanina ayaamaha wiyeerka soomaalida waxay ku mahmaadaa qur-aan oo dhan kufuucan ba isku fuuqsatay ayaamaha wiyeerka ba horta intiiba isku fuuqsaday axmed cali aadanow laakiin yeelkeeda wiyeerkiina laga gudub waana daay cirkii mahad ilaahay baa leh ilaahay baa mahad leh mahaddaa ilaahay dabadeed waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay shirkan iyo xafladdan ka bilaabantay deegaanka dhumay haddana dabataa ka socota dadkii walaalaha ahaa wada leeyahay la wada wado nin kastaa ku qanacsan yahay hadduu baadiye ka yimi iyo hadduu magaalo ka yimi iyo haddii deegaanka uu joogay iyo hadduu ilaa gobol ka yimid lagu wada qanacsan yahay aad iyo aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa hadalkana ha la soo yareeyaa la yidhi waxaa loo socdaa wixii dhacay aafadii dhacday ilaahay wayna ka gudbiyee sidii loogu walqali lahaa nabadda maanta inoo qabsoontay walqasheediina way socotaa waana lagu ducaystay sidii meel loogu ogaan lahaa ee looga midho dhalin lahaa baa maanta kulankaas u dambeeyaa oo uu ka socdaa waxaan ku soo gebagabaynayaa horta annagu waxaan u nimid hadday ciidan tahay iyo hadday guurti kale tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo hadday ergooyinkii aad dalbadeematiin nabad baanu u socnaa nabad baanu daadihinaynaa tii jigjiga aanu ka keennay baanu daadihinaynaa tii laascaanooda aanu ka soo qaadnay baanu daadihinaynaa tii dhumay aanu la soo marray baanu daadihinaynaa haddaad reer daba taagaytihiin ma nala qaadateen waxaan intaa ku daraynaa sida loo sheegay waxaannu doonaynaa wax kastaba sidii odayaalku u sheegayeen dangaagaalaha iyo ninka yacni mataqaanaa wax magaratada ah ee doonaya inay nagu celiyaan cilladdii iyo cudurkii inu soo dhaafnay ee aannu ilownay kaa waxaannu doonaynaa in laga midoobo in la sheego in la qabto in iska mid lagu noqdo inaan loo ciidmin waxaan kaloo tilmaamayaa oo waxaynanaa mar labaad iyo mar saddexaadba nabaddaas aanu soo qaadannay ilaa jigjiga 8 bilood soo waday ee aynu ku noolaannay ee ku naxariisannay ee ku barwaaqownay ee ku roobaysannay ee u dambayso tii u dambaysay gunaanadka ahayd sidiina u soo qaadannay ee aynu u gardaadinayno oo ay maanta tii ugu dambaysay laguna jexilaa tahay hal la qaataanu leenahay dharkayn ha ahaato dabataag ha ahaato tuurta ha ahaato saaxdheer lafteeda aanu doonayno iyada lafteeda wax looga reebaya anugu garan maayo meel walbaba nin weliba degaankiisa meeshuu u lahaa ee ku habboonayd inuu tagaanu doonaynaa berri wax laga gaadho nin weliba gurigiisii iyo dalkiisii iyo berkadiisii iyo heladiisii inuu u fasxa qaato oo loo ogolaado oo aan mabna laga gelin isaguna uu ku soo dhaqaaqo bacda salaan deelintayada halka maraysa waxaan u malaynayaa badankoodu shirar badan bay labada beelood u yimaadeen oo loo qabtay oo nabaddaa ku saabsanaa ama tan ha lagu qabto ama magaalooyin kale ha lagu qabto muddo badan baa loo socday nabaddii jigjiga lagu soo qaaday ee dowladda deegaanka Itoobiya madaxweynaheedii iyo waftideedii ay u soo gurmadeen guusha ku soo dhammaaday go'aanadu ka soo baxeen markii dambena xilkeeda lagu wareejiyey dhagax isku raw Somaliland dowladda Somaliland iyo madaxdeeda iyo isimada iyo waxgaradka beesha dhulbahante guul bay ku dhammaatay guul bay ku socotaa waa maanta nabadda loo wada fadhiyo waxa weeye gabagabadii baynu taagannahay maanta socodku wuxuu ahaa qodobadii jigjiga lagu soo qaatay qodobo ka mid ah sidii loo fulin lahaa qodobadaas waxa weeyaan dadkii deegaanadii sidii loogu celin lahaa oo nin walba gurigiisii iyo barkadiisii u tagi lahaa oo isagoo nabada nin walba deegaankiisii u tagi lahaa qodobka ugu muhiimsan maanta loo soo ambabaxay waa qodobkaa weeye waxa weeye sidaa la sheegana waxaan ka soo bilownay dhumayna si wacan baana lagu soo dhoweeyey dadkii dhumay beeshii ka maqnayd iyadoo guuraysa bay magaaladii annagoo joogna soo degtay meheradii bay furteen waxaa lee sheegay markiiba 2 meherood
in la furay oo moobiladii laga dabaysanayey insha allah guul iyo sharaf bay noo tahay haddii maanta deegaanadii lagu soo wada noqday dabataagna waxaan rajaynaynaa in inala galabta ilaa urta iyadana deegaanka ka maqan iyo dad ka maqan ay iyagana soo bilaabayaan deegaankoodii guryahooda ay ku soo noqonayaan iyo turgasa kasta insha allah waxaan rajaynaynaa wiilka soo socda inay iyagana ku xigi doonaan ciidamo baa xagga dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya naga ballan qaatay waxa weeye iyaga xagga la wareegay iyaguna waa imaanayaan baa dhaqso imaanayaan deegaanadana dadkii deganayana dhaqso ugu noqonayaan guryahoodii beerayahoodii iyo guryahoodii mid walba insha Allah dambu qulu wal raaci saawrkii baa waxa ka haystay niman awr kala wato cola inta awrkii qasheen ba hilibkii ku rartay awaysinkii markay meel marayeen geed ku xirteen awrkii hilibkii saaray yahay markaas la yiri sheeki fiidkii waay awrkii siwariyaada qulu wala maanta awrkii siida habeen barkii buu isagoo hilibkii la guuraynayo keena ninkii gawrka raaciyo wuxuu quraan geel soo wada hooy laakiin qulu wala quudkuuba dheera ma intaanu maraynay nabadda waa ku arkay laakiin waxa dheerayn gabdhaha iyo masxaradda intaas aad idinku sii dheertii hadalkaas waxa la yidhi hadalka halla gaabiyaa la yidhi haddaad istiraa gaabina marba meelaad ka tagtay kuu muuqanayso oo dhiman bal haddii aan yar ku talaaqo annagu maanta nabadde waataan ilaa jigjiga ka shaqaynayn waataanu dhulka badan idinku nimid waataad nala qaadateen haddana innagoo sidan oo kale isugu nimaadno oo nidhaahna isku soo guura mooyaane idinmaanu odhan qolo waliba meeshii tag maanta waxaan u wada soconnaa wakhtigii aanu doonaynay baanu gaadhay intaana waxaan ku jirray turxaan bixin ogaada wax kale umaanu kala maqlayn war hebel maxaa uurkiisa ku jira war wiilkiisa maxaa ku jira war hebel wiilkii ka dhintay ma ka samray war walaalkii ma ka samray maanta turxaan bixintii waanu gaadhnay salkeedii baanu gaadhnay waxaanu gaadhnay nin walba inuu samro bal horta wixii inaga dhintay cawil khayr qaba allah inaga siiyo samir iyo iimaanna allah inaga siiyo haddaynan intaa qaadanno samir iyo iimaan qaadan waxba nabad inoo hirgeli mayso waxba annagu maanta waxaan u soconnay in qof walba dib dambe aydan noo odhan odayaashii isuma kaaya keenin qof dambe gurigiisa ka dooni mayno meel dhiman oo aanu tagna mooyaane intaanu maray kii ka maqan isaga ka maqan annaga naga sugi maayo annaga nalaga sugi maayo qof walba isaga gurigiisii u madax bannaan taanu maanta u soconnay waa ta gabagabadii waxaa hadalkaas soo afmeelay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere wanaaga sharaf ay ka muuqataa saa ku sii wadaan leenahay sida la idin sheegay ciidankan wuxuu socdaa inuu nabadda ilaaliyo idinku ha ku kalifin inuu nabadda dhaliyo nabadda hadii la dhaliyo waxa ka dhalanaysa dil dhibaato ka dhalanaysa sida uu taliyaha ciidanku idin sheegay nabadgelyada waxa lagu sugayaa in qoriga la ururiyo qoryihiina lama qaadanayo magaalada qori oo leeyahay ma jiro xerada ciidanka wixii magaalada hub yaala la dhigayaa halkaas lagu ururinaya ninka miyiga ka soo galaana checkpointiga uu taliyuhu u sheego ayuu sheegay annaga dawladda dawnahay waxa wakiil naga ah ninkaas taliyahaas beesha wakiil naga ah oo wada garanaysan wixii uu noo soo gudbiyaan ku xisaabtamana hadhow wayaan la isxamani yaan la oran cid baa lagu xadgudbay taas waa qodob waa amniga takala runtii de beeluhu odayaashu aad bay uga soo shaqeeyeen nabadda meel dheer bay u tageen maanta waa gabagabadeedii baynu maraynaa tuulooyinku way tartamayaan runtii waxaa lagu tartamaya hadhow marka la kala tago waa la isxamanaya war meel hebla maxaa ka muuqday waa la odhanayaa ciddii koobka qaada waa la sheegayaa oo facebookyada iyo websaydyada lagu soo qori doonaa marka waxaan maleynayaa in hawshaas waxay ku xidhan tahay sida aad xilka isaga saartaan tuulooyinka ay u tartamaan dowladaha jaarka ah dowladda dowlad deegaanka iyo dowladda Soomaaliya nabadda waa ku tartamanaayo anagu waajibaadkayga waa ka soo baxnay wixii aad naga dalbateen ciidana waad naga hesheen adeegyadii kale oo dhanna waad naga haysaan wixii dambana waanu idin haynaa sida madaxweyne Muuse Bixi ballan qaaday nabaddaas wax ka go'antay meel kasta in loogu tago dowlad deegaanka waxaan ka codsanaa iyadana ciidamadii ay ballan qaaday deegaanada aanu iska soo galno ay u ballan qaaday yaanu xadka ka wadaagno in iyadana degdeg u keento oo aan waqti badan siinin iyadana intaas ka codsanaya dhammaantiin xilli amiinaan joognaa waxaan ku salaamayaa ilaahay inuu nabadda inooga dhigo mid waarta oo midho dhasha oo aynu ku meeqaan gaadhno oo wiilka wiil aynu ayno ilaahay subhanahu wa ta'ala hana lees afiyo wa salaamu alaykum